kala weydiiyay ninkan maxaa lagu haystaa markaas la yiri 200 oo shilin oo Kenya money bas laga rabaa waxay dhaanaa 200 haystee haddaan 100 siiyo 100 kale ana isku ilaalinaya ee maladaynaya haahu 100 kii laga qaaday janankii waladi waa ninkii jananka ahay gobernatooraha noo ahay nin askari oo wuxuu ku beecinaya 2 shilin 200 oo Kenya money halkaas waa ka dhaqaaqo waxaan tagay Dubai ninkii airportka iga qaaday oo igeeyay guriga la seexdo nin uu la hadlay wuxuu yiri boos banaan ma haysid markaas uu yiri waxa banaan meel kora anigu marka meel kora ma fahmo guriga la igeeyay 4 sareerood oo ku xalana oo kaleeta oo 4 nin oo kor jiifto 4 nin hoos jiifto alaygi waxa la yiri wanikaan waa culus yaho korma fuuli kare hoosa la gelinaya boqol iyo konton waa inuu dhiibaa meesha dadka kala boqol ka dhiibaa waayaha la yiri dantaaba keentay boqolkaygaan dhiibtay iyo kontonkaygii subaxii waagu haduu bariya aniga bas soo toosay iyo gabdhi gurigu 2 qol oo ka kooban yahay iyo jikada iyo hal qol waxa degan gabdho qolka kaleetana 8 qofood oo rag ah deg subaxii waagu markuu bariyaan aniga iyo gabdhihii soo toosnay war wiilasha kale maxaa ku dhacay wiilasha kale 5 saac 6 saac ay soo kacaano habeenkii ay jawaanay xirxiraan maalintiina waa jiifa habeenkii markii la gaaray oo subaxii waagu haduu bariyaan soo habeenkii la gaaray dadkii wada seexday gabar aan ugu soo hartay oo meesha fadhis markaas ay raadeen ma saaxatay adu markaas ay tiri maya anigu jiif ma lihiyo gabar bari shaqo tagaysa aan booskeeda saaxar raba subax ma la jiifta ma hays halkaas waa ka tagay Mareykanka mar alla markaan Mareykan tagay aalay dadka cusubo warshad hilibka qasha ay horta ka soo shaqeeyaan kadib ay magaalada ku soo noqdaan todoba maalmood oo rotation la furay markaan rotation dhamaystay wax la geeyay halkii warshadu ku til irideeda qofkii iga hor yimid oo igu horeeyon arkay nin Soomaaliya abukaato ahay oo maxkamadda badbaadada lawyer ka ahaa jiray oo 2 midiyood iyo soofo wata oo meesha ay ugu jiraan ayaa iga hor yimid adeeradu maxaa qabanaysaa maxaa qabanaysaa maxay tahay hilibka qalaya aniga markaan gudaha galay la yiri adiga iyo 2 Suudaan oo xoog aad leedihiin midiyaa la idiga dhibi ma meel ka sareysa la idigeeyay ajalada hilibka sida la yiri mara ay istaag noqotaa halka kartoon waxa ku jira 70 kiilo 400 oo kartoon 1 minute dajinaysaan ajaladu markay toostana waa ku celinaysaa sidaan maalintoona istiil u lahaa anigoo maalintii qorraxu markuu dhacay saasa u socdo sida uu istaagi karay arinta ka soo bax bishu markay dhamaataa waxa la yiri $300 aad shaqaysatay graduation dadku ugu horeeyo oo lacagta helaabata 500 ilmeyga cunay 200 iyo 300 ana transport ka dhigtay 9 qofood oo mid maalin shahaadi siiyay iyo mid maalin meel iga bixiyay iyo mid maalin waxii taagay iyo mid qaraabana ay soo wacay waxay ka wada sinaayeen mar kasta ay hadalka dhameystaan aniga maanta kaliya ku soo waco wiligeey dad soo wacay war boqol ay hartay boqolkii oo deeqa waa ka soo laabtay xamaraan imaday waxaan joogaa 7 sano joogaa ma bixin wiilasha dhalinyarada mid walba waxa uu yiraahdaa adeer goormaad noqonayso Mareykanka ku noqonay anigana waxa igu taal inaan baadiye si aado xagga u sii socdo waxa ku soo qatimaya dadku markuu ugu horeyso waa inay horta wadaniyad yeeshaan aaminaan dalkooda ama foorarka ka shaqaystaan ama qaab kale u shaqaystaan
waa in aad leedahay waxaad cunayso raadinaysa wax ka weyn waa barjiibiyada adiga laftaada ka weyn waxa kale oo ka weyn dhulkaaga wallaahi ina nin dhulkiisa ka tago loo faa'iido keenay hal kelmadaan ku soo qatimaya nin adeerkeeya awaagi guulwado soo baxay guulwado loo qoray waxa la yiri qof kasta oo qaldamo ama xoolo ama dad waa ganaaxiis maalintii daba u baxay beertiisa uu tagay beertii banaankeeda soo joogo wuxuu arkay rati ku jira beerta waa fiiriyay ratiga marka uu beerta ugu tagay dhacayo soo gal waxa uu keenay meeshii lagu ganaaxay ratiga asaa iska leh beertana asaa iska leh laakiin waxa la yiri wixii qaldamoona ganaax maalmahan waxa la maqlay nin Soomaali Kenyaana oo anigu Soomaaliya ahay badda Soomaaliyana Kenya leh war halmeena ma iska aamuso yiraahdo anigu Kenyaana ahay waa adeerkay ratigiisii ganaaxo kale هذا هو ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ها هذا هو تكمل هذا هو تأمل هنا